Salaamu calaykum. Ku soo dhawaada channelka Afrax. Xitaa haddaadan danayn culumta fiisigiska, waxaa lagama maarmaan ah inaad wax ka ogaatid caalimkan caqliga u saaxiibka ah. Markii laga soo tago inuu ahaa qof naafo ah gebi ahaantiisba, uusanna awoodin xitaa inuu hadlo, haddana waa mid ka mid ah fiisigisyahanada ugu caqliga badan adduunka. Stephen Hawking waa caalim fiisigisyahan ah ee dalka England. Waa mid u saaxiib ah aragtiyo aad u badan. Waxaa ka mid ah aragtida black holeska, godadka madow, iyo diinimada kulul, iyo sidoo kale cilmi baaris ku saabsan sida uu dhulka u samaysan yahay. Hawking wuxuu dhashay 8 January 1942 magaalada Oxford ee waddanka England. Wuxuu wax ku bartay jaamacadda Oxford, wuxuuna helay shahaadada ugu sareysa ee cilmiga fiisigiska. Wuxuuna waxbarashadiisa ku dhammaystay jaamacadda Cambridge, markaas uu helay shahaadada doctorate-ka ee cilmiga kownka. Heerkiisa waxbarasho Hawking, midda dhexe iyo midda hoose, waxay ahayd mid aad u liidata, laakiin waxa uu danayn jiray inuu ogaado wax kasta sida ay u shaqeeyaan. Waxaa markasta caado u ahayd inuu furfuro saacadaha iyo raadiyaasha si uu u fahmo sida ay u shaqeeyaan. Ayaga oo la yaaban caqligiisa badan, ayay ugu yeeri jireen carruurta ay isku fasalka ahaayeen Neenasta Alberto Einstein. Hawking wuxuu jeclaa xisaabta. Mar wuxuu haminayay inuu ku takhasuso xisaabta, laakiin jaamacadda Oxford ma lahayn takhasus xisaab, taas oo ku qasabtay inuu sii joogteeyo barashada fiisigiska. Stephen waxaa ku adkaatay jaamacadda Oxford sanadkiisii ugu horreeyay, taas oo ku abuurtay murug badan. Waxaase ka caawiyay inuu jaamacaddiisa sii wato. Mar uu ku biiray kooxda tartanka doomaha, kuwaasi oo ahaayeen ardayda jaamacadda la dhigata. Maadaama uu ahaa qof aad caato u ah, awood badan aan u lahayn inuu doonta wado, haddana wuxuu fadhiyay qaybta hore ee doonta si uu u hago. 3 sano kadib, waxaa Stephen la soo darisay hoos u dhac miisaankiisa ah iyo daal badan oo sabab la'aan ah. Halkaasna waxa uga bilowday safarkiisii caqabadaha cudurrada aadka halista u ahaa. Markuu 21 jiray, waxaa ku dhacay cudur xagga neerfaha ah, taas oo u keentay inuu dhinac naafa ka noqdo. Cudurkaas ayaana ka dhigay waqti badan cad meel fadhiya, aanan awoodin dhaqdhaqaaq. Dhakhaatiirtana waxa ay sheegeen cudurkan inuu halis yahay, uusan awoodi doonin inuu noolaado wax ka badan 2 sano. Laakiin Hawking wuxuu wax badan la xarbiyay cudurkan. Maanta waa 71 jir, weli nool. Taasna waxa ay ka yaabisay dhakhaatiirta sanado badan. Halahaas kuma ekayn cudurkii sariirta seexiyay, balse waxaa halahaas u sii dheeraa. Sanadii 1985 waxaa ku dhacay caabuq sanbabaha ah. Waxaa qasab noqday in qalliin lagu sameeyo cunaha. Qalliinkii kadib, wuxuu gebi ahaanba waayay awooddii hadalka. Intaas kadibna wuxuu adeegsan jiray tilmaamo qof fahmi kara tilmaamihiisa si uu wax u barto. Waqti badan markuu saas ahaa, waxaa sii daciifay neerfihiisa, wuxuuna adeegsan jiray labadiisa gacan oo keliya. Stephen waxaa loo sameeyay kombiyuutar asiga gaar u ah oo ka caawinaya waxa uu rabo. Intaas kadib, Hawking waxaa sii daciifay neerfihiisa oo xitaa wuxuu awoodi waayay inuu nuujiyo gacmihiisa. Dadkii caawinayay Stephen waxa ay mar kale u sameeyeen qalab dareemo leh, kaas oo marka uu indhihiisa nuujiyo
u tarjumaya kelmado. sidaas ayayna Hawking ku isticmaalayay qalabkaasi waqti dheer ilaa uu awoodi waayo in xataa uu indhihiisa nuujiyo. intaas kadib shirkadda Intel ayaa u samaysay kombiyuutar gaar u ah kaas oo hadal u bedelayo waxa uu ku fakirayo. Hawking waxa uu hormariyay aragtidii qabtay in uu koonka wax xuduud ah lahayn, taas oo bedeshay fikirkii horey looga haystay oo ahayd in uu dhulka ka samaysmay qarax aad u weyn kadib. wuxuuna ku tilmaamay in samaysanka dhulka inuu yahay wax nidaamsan oo meel ay ka soo bilowdaan leh. wuxuuna qoray kitaab ka hadlaya dib u yaraanshaha waqtiga, kaas oo ku faahfaahiyay fikradaha fiisigiska lagu qoro. sidoo kale kitaabkan waxa uu galay rikoorka ay diiwaangeliyaan Guinnesska ee ah rikoodyada caalamka. akhrinta kitaabkan oo noqday kitaabka loogu akhris badan yahay dunida, waxaana lagu tarjumay in ka badan 40 luqad, waxaana laga matalay filim 1991. sanadkii 2007 Hawking waxa uu soo tijaabiyay birlabka dhulka meesha ay gaari karin. Hawking waxa uu sidoo kale ku caanbaxay firfircoonida iyo dhaxgalka bulshada iyo inuu ka qayb qaato nabadda iyo xasiloonida dunida. wuxuuna caawin jiray carruurta yaryar, wuxuuna ka qayb galay mudaaharaad looga soo horjeeday dagaalkii Ciraaq. sanadii 2013 wuxuu sheegay inuu diiday inuu ka qayb galo shir ay hogaaminayeen dowladda Israa'iil. sidoo kale wuxuu helay wax aan ka yareen 12 bilad sharafeed. caannimada Hawking ayaa la sheegay inay igu timid inuu ahaa qof aad u caqli badan, taasi oo ahayd arrin gooni u ah, iyo baahidiisa cilmi aan wax shaki lahayn. laakiin Hawking ma ka reebin inuu gaaro baahidiisa cilmiyadeed inuu ahaa qof cad ah oo kursi ku jiifa iyo jirkiisa aan dhaqdhaqaaqi karin. intaba kama dhigin inuu isku dhiibo duruufaha haysta, arrintaasina kama reebin inuu gaaro hadafkiisa. si uu u noqdo qofku dayasho mudan, in awoodda bini'aadanka ay tahay mid aan dhammaan si aad u gaarto waxa aad rabto. waxaa soo gaarnay dhammaadka muuqaalka. waxaan filaa inaad ka hesheen, ra'yigana aad kasoo dhiiban doontaan. hana ilaawina inaad subscribe dhahdaan. salaamu calaykum.